No one knows the secret. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، وبرنامج كيني قيمها بدنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبرنامج تضواد لأ. برنامج كان وحيدين سوى دياريسيه أدى إيوه. برنامج كان أسئلوين كيسة waxaad ku soo hagaajin kartaan sanaadiiqda ku dhagan masaajidka iyo emailka ay muasasadu leedahay ihsanmedia@gmail.com. barnaamijkan waxaad dib uga daalacan kartaan webpage-ka ay muasasadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net. sidoo kale waxaad ka daalacan kartaan salaf media iyo ihsan media. barnaamijkan dad badan baa hawada naga dhageysta oo inta masaajidka ku jirta aad uga badan. waxaa kamid ah qolka wanunfooga. fadhigeena caawa oo fadhigii 11aad. su-aasheena caawana waa su-aasha 162aad. saa'ilkan waxa uu leeyahay: sheekh, hadduu roob igu haleelo gurigayga ama goobta shaqada, salaadaha ma jamcin karaa sida masaajidka looga jamciyo? bismillahi rahmaani rahiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلاة إن للجمعية والروب درتي لو جمعية ومسألة أصل كله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حان الله دليل شذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعليه عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. النبي استوى مقالديسي مدينة جوغة أيو عصر كي الظهر كإسكو دري، مغرب كي عشاء نو إسكو دري وإسلتو كذي. xilliga isaga ah baqdin ma jirin oo cadawgu ka baqaya ma jirin, roobna ma jirin. Abdullah ibn Abbas baa la weydiiyay, waxa la yidhi muxuu ula jeeday baa la yidhi ma arada bidalika. markaasuu wuxuu ku jawaabay arada an laa yuxrija ummatahu. nabigu wuxuu rabay inuusan ummadiisa cidhiidhi gelinin, يعني إنه أمديس أفضل ذي أو عريري أسنجلنين هي وجدة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كاسي وحديث صحيح. طيب، مركا أسباب صلاة الله جمعية إنه رابك كم دها أي حديث كلا فهمية من غير خوف لفظك ولا مطر. سيدنا وحى هاي سيدو كلا الصحابة رضوان الله عليهم. ومالك وحى موطئيس كسوغا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والصحابة كمدها كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. مدحض مركي صلاة جمعيان إسوغية روب درتي. عبد الله بن عمر وكل راعي جري، يعني صلاة ولا جمعين جري. marka arin caana bay ahayd salafka agtooda. sidana waxa maray ayma fara badan oo kamid yahay al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, waxa kamid ah Imam Malik iyo Ahmad oo iyagu yiri maqribkii cishaha baa la jamcin karaa. Shafi'i se afarta salaadood ee la jamciyaba isagu wuxuu waa la jamcin karaa. tawa guud ahaan masalada salaadaha cudurdaar roob baa da'aya ma loo jamcin karaa waa mas'alo asal leh, culimo badan ay qabaan. طيب، hadaan u nimaadno marka su'aasha yaa jamcin kara waa ruux gurigiisa joogo keligiya ama shaqadiisaba jooga hadduu roobku ku helo ma jamcin karaa?
ومسألة خلافية واحد علماء ويكون العرقتي بدلين لكن سيدة حوق بدن وهو الأصح في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما جمعين كرو روح كليجية وحلو جمعين يوا جماعة وودت كشدة ووحال مشقة كتيرتا عليس يديب كتيرا dadkii inay salaada kale u soo noqdaan oo roob intay sii maraan hadana roobka ku soo noqdaan dibkaas dadka looga baayaa marka ruuxii gurigiisa iska joogay wax dhiba ma haysto salaadan inuu waqtigeeda tukado ta kalena waqtigeedii ku tukado baa fi mushkila isaga mashaqo iyo dhib ma haysto wakadalika ruuxii munfaridka ah keligii ah masaajid baa joogay haduu roobka ka tago gurigiisu isaga tukan karaa jamaaca uu soo noqonayo ma jiro waxay leeyihiin mashaqada iyo culaysku wuxuu ku jiraa markii la isla tukanayo saas daraadeed marka la wada tukanayo oo masaajidka iyo imaamka marka baa la jamcin karaa ama ruuxa keligiya iyo ruuxa gurigiisa jooga ama xafiiskiisa isagu inuusan jamcin karin sidaas xoog badan waa mas'ala khilaafiya wallahu a'lam jazakallahu khairan khairul jazaa su'aasheenna 163 magaciigu waa Cabdulqani oo jooga waqooyiga America credit card-ka ay bangiyadu bixiyaan ee deynta ah ma qaadan karaa gaar ahaan haddii shardi looga dhigayo meelaha qaar inaad haysato isaga sida safaaradaha iyo marmar wax lagu iibsanayo credit card-ka waa kaarkan bangiyadu bixiyaan kadibna suuqyada wax looga iibsado ama khadamaadka iyo serviceka lagu iibsado ama badeeca caadi ah lagu gato baabuurta lagu kiraysto kaasa credit card la yiraahdo isaga marka noocya uu kala qaalisan yahay visa card iyo golden card iyo waxbu kale leeyahay laakiin kulligii isuge qaybihiisa kala duwan wax ma lagu iibsan karaa ma la isticmaali karaa jawaabtu waxa weeye qaybuu kala leeyahay xukunkuna kolba wuxuu ku xidhan yahay qaybta uu yahay مثلا qaybihiisa waxa kamida ruuxa kaarkan wata lacagta akoonka ugu jirta kaliya buu isticmaali karaayo wax ku gadan karaa bangiguna inta iyo kaarkiisuna intaasay u fududeynayaan wax deyna ma galayo kumana qaadan karo laakiin lacagtiisii akoonka ugu jirtay ayuu kaarkan intuu wax ku iibsado baa hadhow lacagtiisii laga bixinaya waxa la yiraahdaa bidaaqatu ad-damaan al-muqattaba la yiraahdaa waa mid la daboolayo lacagtiisii baa ninka meesha u taalo laga bixin doona deyna ma qaadanayo taa dhib male taa noocaas oo kala dhib malaha mid labaadi waxa weeye waa meelaha qaar kood bay ka jirtaa kaarkan badeecada aad ku iibsato bangiga kaasi bixin doona laakiin dulsaar male sinaba haddaad la daahdo dad waqtiga kala daahdo haddii aad dulsaar male iyadin baa laga rabaa hadday taasoo kale tahayna dhib male haddii ay tahay kaarkan alaabta aad ku iibsatay waqti baad haysataa aan dulsaar iyo riba kugu bilaabanayn muddada haddaad ku bixiso wax siyaada lagama rabo waqtiga aad ku heshiiseen bil dheh 3 bilood dheh usbuuc dheh muddada haddaad ku bixin weydana marka dulsaar baa kugu bilaabanaya waana sida ay u badan yihiin bangiyada ribada ku shaqeeya kaararka laga qaato hadday sidaas tahay muaamaladaasi ma banaana laahi aqdiga iyo heshiiska kaarka lagu qaadanayaan banaanay laana waa aqdi ribawi ah wala badeecada lagu iibsanayaan banaanay laana riba dib ka fuuli doonto waxa isku mid ah adiga ama waqtiga lagu siiyay ku bixiyo ziyadada ribada iska ilaali ama ha ku bixinno ha ku fuusho
caqdiga hore eed gashay eed kaarhka ku isticmaalaysa laftiisaaba ribowi ah. intaynaan isla gaadhin anugu waan iska ilaalin karaayoo waqtigii intaan la gaadhin baan iska bixin, adeertaaba intaan la gaadhin heshiiskan aad kaarhka ku qaadatay eed wax ku gadanaysa laftiisaaba caqdi ribowi ah, shardi ribowi u bootaa. jumhuurtuna waxay qabaan maalikiyada, shaaficiyada iyo xanaabilada, caqdigu hadduu wato shardi ribowi hadduu wato caqdiga laftiisaa buraya. meesha xanafiyadu ay leeyihiin caqdigu waa asaxaya, shardigaa buraya. marka jumhuurtu waxay qabaan caqdigan laftiisaa baadilan waxba ka jirin. saas daraaddeed ma bannaana. allahuma xaalaad daruuro oo meelaha qaarkooda waa meesheeda, laakiin asalku kaadharhkaas hadhow dulsaarku imaan doono in la qaato, lagu mucaamaloodo, wax lagu iibsado, wax lagu kiraysto ma bannaana, ribaana ku jirta. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashiina 164aad waxa uu saa'irkan leeyahay sheekh, waxaa igu soo qaldantay lacag $40 ah. markii aan dhowr cisho hayay baan wacay lambarkii ay lacagtu ka timid. qofkii iga qabtayna waxa uu yidhi malihi, mana garanayo lacagtaas. hadda waxaan hayaa 7 bilood, markaa maxaan sameeyaa? lacagtan nambarkii ay kaaga timidba haddaad hayso nambarkii ku celi, laanna cidday ka timid baa la garanaya. ruuxan kule anigu melihi waxaa laga yaabaa inuu leeyahay, laakiin si khalada uusan ogeyn uga baxday. laakiin maadaama nambarkii lacagtani kugu soo gashayba aad hayso, nambarkii ku celi. ciddii ay ka timid ayay ku dhici, meel kale aadi mayso. soo maha saasaa curfiga. marka waa jiha la yaqaano waayo, jiha la garanayo waayo. xoolihii u celiyo meeshii ku celi, nambarkii ku dir. ayib, taa markaysaa noqoto suuro waxaa imaan karaysa in ruuxii la waayaba, hadda nambarkii waa la garanaya, laakiin ruuxii in la waayo, meel laga doono la waayo, shaqsigiisii la garan waayo, qaab loo helo ay adkaato la waayo. xoolaha noocaasoo kale ku yimaada waa xoolaha loo yaqaano xoolo maaligoodii ciddii iska lahaa uu majhuul yahay. xoolaha noocaasoo kale ana waxaa lagu bixinayaa cinda jumhuuri lculamaa masaalixda caamkaa lagu bixinaya, danaha guud ee muslimiinta lagu bixinayaa, oo halkaas ayaa lagu sarfinaya. waa madhabka xanafiyada, maalikiyada, shaaficiyada iyo xanaabilada, ibni xasmi ay culimo fara badan baa qaba. xoolaha maaligii lahaa la waayo oo sina aan loo heli karin laga quusto, marka waxaa lagu bixinayaa danaha guud ee muslimiinta, yacni wadooyinka, isbitaalada, ceelasha, biyaha, waxbarashada, ammaankoodii iyo nabadgelyadooda, masaalixdaasaa lagu bixinaya. wakadalika waxaa bannaan masaakiinta iyo fuqaradana waa la siin karaa. xoolaha asalka ninkii iska lahaa la waayey lagana quustay. waxaa isla meeshaa lagu bixiyaa xoolaha jid khaldan kugu soo galay, mucaamalo khaldan bay kugu soo galeen, si khaladay kugu soo galeen, wax khaladaad ka ganacsata soomaalit. xoolaha saasoo kale kugu soo gala iyadana marka laga takhallusayo ood isdhaafinayso, iyadana masaalixda guud baa lagu bixiyaa. tabcan aahaar baa saxaabada ka sugan, cabdullahi bn mascuud iyo keyrkood. xadiid kalena waa loo deliishadaayo, xadiid rajul min alansaar wuxuu leeyahay nebigaan maalin janaaso u raacnay buu yidhi. markaasaa waxaan arkay buui rasuulka sal alla alay waslam oo qabriga korkiisa ninkii qabriga qodahayay u dardaarmayoo la hadlayoo leh qabriga xagga lugaha ka ballaadhi, dhanka lugaha waasici, ku celcelinaya. markii qabrigii ruuxii la aasay baan soo laabannay buuhi. nebigoo jidka kusoo jiroo soo socda ayaa nin yaa u dhawaaqay. ninka haweeney baa soo dirsatay oo nebiga iigu yeedh tiri, xoogaa martigeliyay rabtaa inay u samayso isagiiyo saxaabada la socda, inay xoogaa cunto u karisay rabtaa. wuxuu yidhi nebigu hadduu meeshii yimi sal alla alay wasalam, cuntadii baa la soo diyaariyey. cuntadii marka la soo dhigay oo gacanta la geliyey oo nebigu afka geliyey sal alla alay wasalam,
ayaa dadkii meesha joogay waxay arkeen nebigii oo ruugahay hilib meesha ku jiray buu ruugay waa callinaya mana liqayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaa ii muuqata hilibkani inuu yahay neef idan la'aan lagu qalay ruuxii lahaa idankiisa la'aantii lagu qalay hilibkiisaa ii muuqda oo si xaqdarraa lagu gowracay haweenaydii baa la weydiiyey oo neefkan xaggeed ka keentay markaasaa waxay tihi rasuul ilaahi oo suuqa baqiic oo xoolaha lagu iibiyo ayaan cid u dirsadoon ku idhi war neef iiga soo iibiye waa la soo waayey kadibna ninaan daris ahayn baa oo shalay maalin dhaweed neef soo gatay baa waxaan ku idhi war neefkii iisoo dhiib aan kuu celiyey kharashkiisii ninkii baa guriga laga waayay xaaskiisii baa iisoo dhiibtay bay tiri sidii baan ku qalay ninkii iska lahaa lagama soo qaadin laakiin xaaskii baa soo bixisay iyaduna ma leh soo maa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam amar markaa wuxuu ugu bixiyey dadka maxaabiista ah ha la siiya hilibkan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh acimiihi alasaara dadka oo maxaabiista ah oo lasoo qafaashay dadkaas siiya buu rasuulka sal alla alay wasallam isagana waa isaga kaca marka xadiiskaas iyo aahaar fara badan baa loo daliishadaa shayga jidka xaaraantaa ku yimid oo caqdiga xaaraantaa kugu soo galay iyo ciddii lahayd waxaan la garanayninba masaalixda caamkaa baa lagu bixiyaa nacam جزاه الله خيرا سؤاشنا بقرشنا الحدنات سائلك شيخ وحو ليهي الشاعرadu ma ka mid yihiin ahlu sunna wal jamaa mise ka mid ma aha الشاعرadu waxa la yiraahdaa waa atbaac Abi al-Hasan al-Ash'ari Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi wuxuu ahaa nin culimada ka mid ahaa oo noloshiisa marxalado badan soo maray marxaladiisii hore wuxuu ahaan jiray mu'tazili oo Jubaa'i iyo rag la mid ah ayuu madhabka i'tisaalka ka qaatay muddo dheer buu ku jiray kadibna wuu ka baxay wuxuu qaatay haddana madhab la yiraahdo al-kullabiyya oo uu lahaan jiray ninka la yiraahdo Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab madhabkii mu'taziladana ka yara sokeeya laakiin aan aad uga fogeyn marxaladana markii dambe uu ka soo noqday umrigiisa qaybtiisii dambe uu ka soo noqday madhabkii ahlus sunnaha oo Imaam Ahmed markaa uu matalayay uu caansana ayuu u soo laabtay waxa la isku hayaa siday ahayd miyuu u keenay mise waa ku soo dhawaaday oo khaladaad baa wali ku jiray oo raad ka soo raacay oo wali ku dambeeyay baa jira marxalada dambe waa marxalada uu alifay kutubtiisa saddexdii hadda laga hayo kitaabkan al-Ibana iyo risaala ila ahli al-thaqr iyo maqaalaat al-islaamiyiin saddexda kitaaba marxalada dambe uu alifay sidaas daraadeed saddexda kitaaba waxa ku yaala waxay khilaafsan tahay qoladan ashaacirada ee hadda ku abtirsada Abu al-Hasan al-Ash'ari waxa ay rumaysan yihiin iyo saddexda kitaab wuxuu ku qoray way iskhilaafsan yihiin marxalada marka hadda ash'ariyada la yiraahdo atbaacdani hadda ay ku abtirsadaan waa marxalada dhexe oo la yiraahdo waa madhab al-kullabiyya waa markuu fikirkaasi qaatay bay ahayd al-muhim maraaxisha kala gedisan marka laga yimaado ashaacirada mutaakhiriintoodu intooda badan madhabkii Abu al-Hasan al-Ash'ari ma haystaan way isaga abtirsadaan laakiin ma haystaan bal waxay ku dareen waxyaalo kale oo fara badan oo usuusha jahmiyada qaar kamida midna mu'tazilada afkaarteedii qaar kamida midna hatta falsafada falaasifada hatta aaraadoodii qaar kamida soo galiyeen sidaas daraadeed ashaacirada mutaakhiriintoodu iyo imaamka madhabkiisii kutubtiisa ku salaysantahay way kala duwantahay kullama waqtigu soo marana way ka sii fogaanayeen Abu al-Hasan al-Ash'ari afkaartiisii dambe sida markaynu niraahno fahanno ashaaciradu maxay tahay aanu nimaadna marka su'aasha ashaaciradu ma ahlu sunna mise ma waxaan leenahay marka jawaabtu noqonaysa lafdiga ahlu sunna
laba macno loo isticmaalaa. mar waa la isticmaalaayo waxaa loo isticmaalaa muslimiinta wixii aan shiico ahayn, wixii aan raafido ahayn, ahlu sunna la isku dhaha. saas daraaddeed mar waxaa loo qabiyaa muslimiinta shiico iyo ahlu sunna. waa dadkii saxaabada iyo a'immadii afarta khilaafadoodii iyo dadka sugaya waa. macnaha marka loo isticmaalayo ashaacirada iyo ahlu sunnahay ka mid yihiin oo shiico ma aha, raafidana ma aha. macno kale marka loo isticmaalayo ahlu sunna laga wado dadkii sunnadii iyo dariiqii saxaabadii iyo taabiciinta maray, oo markaa waxaa ka soo horjeeda macno la yidhahdo albidca. ahlu sunna waxaa ka soo horjeeda markaa ahlul ahwaa walbidac. macnaha marka la yidhaahdo sidaa loo isticmaalayana ashaaciradu cala asaxiix mafhuumka iyo isticmaalka noocaasa marka la yidhaahdo ahlu sunnaha ka mid maaha. sababtu maxay tahay? usuusha ay ku khilaafeen saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii sunnada ay ku khilaafeen oo ay jahmiyada iyo muctasilada iyo ku waafaqeen baa aad u fara badan. maalan fii baabi aliimaan waa murji'o, fii baabi alqadarna waa qadariyo, jabriye waay. fii baabi alasmaa wasifaatna waa mucatila jus-iyan. qur'aankana muctasiladay ku dhow yihiin oo qur'aanu makhluuq cinda taxqiiq halkaasay gaadhi. bal kutubta laga qoray marka aad masalada loo dhiraandhiriyo waxaa soo baxaysa madhabkii saxaabada iyo salafka waxay ku waafaqsan yihiin waa mas'alatu saxaaba. saxaabada iyo inaan la caayin, in la ixtiraamo, inaan lagu xadgudbin, dagaaladoodii dhex maray inuu ijtihaadi ahaayeenoo muxuu ahaaye aan midna muxuu ahay xadgudub lagu samaynin laga gaabsado. laakiin inta badan usuusha way khilaafsan yihiin madhabkii ahlu sunna. saas daraaddeed waxaa xog badan culimo badanna ay qabaan isticmaalkaa dambe ahlu sunna kelimada la yidhaahdo ashaacirada iyo maaturidiyadu ma gelayaan, bal waxay gelayaan in ahlul ahwaa walbidac bay gelayaan. culimmada qaar ka mida waa jiraan dhahaya, culimmada sunnada oo dhahaya sida ayaan loo itlaaqina ha la yidhaahdo wixii ahlu sunnaha ay ku waafaqeenna ahlu sunnay ka yihi, wixii ay ku khilaafeenna ahlu sunnaha kama tirsana. qaar culimmada sunnada qaar hala tafsiiliya leh, laakiin taa lafteeda cid walbay suuroobi kartaa. haddii la yidhahdo muctasiladu ma ahlu sunna, ayaga lafteeda waxaa la dhihi muctasila waxay ahlu sunnada ku waafaqdeen oo ahlu sunnay ka yihiin, wixii ahlubidac ay ku waafaqeen ahlubidac ay ka tirsan yihiin. marka yani waxa way alcibratu bilghaalib. usuushoodu dhankay u badan tahay, waxay u badan tahay mukhaalafatu sunna. saas daraaddeed cala asaxiix mafhuumkaa dambe iyo macnaha dambe ashaacirada ahlu sunnaha lagu tirin maayo. wallahu aclam. jazakum allahu khayran. su-aasheena 166aad waxa uu saa'ilkan leeyahay sheekh, qofka xaajiga ah marka uu dhammaysto xajkiisa iyo cumradii ku waajibtay welina uu joogo xaramka, ma la iman karaa cumrayaal kale oo naftiisa uu ka cumraysanayo ama waalidkiisa? xadiid baa masalada ku soo arooray, xajka kadib ma la cumraysan karaa? horta nabigeennu sal alla alay wasalam isagu siduu sameeyey waxay ahayd ama inuu cumrada hormariyo oo cumrada intuu guto xajkana ka dambaysiiyo, oo waa tamatuca, way suganta. ama ma ahee, waana tii uu nabigu amray sal alla alay wasalam, ama ma ahee inuu xajka iyo cumrada isla xidho, camalkoodu iyo acmaashooduna isdhex gasho, oo waa qiraanka. waana kii nebigu xajiyey wey, xajkiisii xajatulwadaac, xajkiisu qiraan buu ahaa. xajkiiyo cumradii acmaashooda isdhexgelaya, hal mar baana lasoo wada xidhanaya, hal mar baana laga wada xalaaloobaya. nooca saddexaadii waxa weeyaan in la xajiyo xaj keliya ruuxu xajiyo mufridi, xajka markuu dhammaysto kadibna cumro ka dambaysiiyo. suuradaasi culimmada qaarkood waa qabaan. mid la yidhaahdaba
xajka gadaashiisa ma la cumraysan karaa culimada qaar kamida waxay u daliishanayaan xadiidkii Aisha ummul mu'miniin fi sahihayn nabiga la socotay sallallahu alayhi wasallam markii magaalada Maka lagu soo dhawaaday bay caadadii ku dhacday magaaladii hadii la yimid ma dawaafi karto laan caadi qabta ayadoo wali caadadii qabta ayaa waxa la gaaray maalinkii 8aad ee xajka loo aadahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa u yimid ayadoo aad u murugsan maxaa ku dhacay rasuulka ilaahay oo dadkii kale umro madax banaan iyo xaj bay sameysteen anigana waata xajki waa isoo kale umradaydii aawe isdhexgali baa la yiraahdaa amaash yaani qiraan xajkaagi iyo umradaadii waa isdhexgaleen sidii bay ku dhameysatay markay soo dhameysatay kadib oo xajkii la dhameeyay waxa rasuulka ilaahay oo dadka kale mid walba xaj iyo umro madax banaan bay la tagayaan umro madax banaan iyo xaj madax banaan anigana waxaygii waa iga qasayeen markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalkeed Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq yu ku daray wuxuu yiri tanciimge waa xaramka markii laga baxo xilliga halka ka soo xirato kadibna soo umraysato soo dawaafto saciga soo sameeyso marka dawaafka soo umrada soo dhamaysato naga daba imaada Abdurrahman baa soo umraysiyay kadibna way ka daba tageen nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi marka waxa ka muuqda Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma xaj iyo umro isku jiray gudatay sooma haddana iyadoo xaj iyo umro wada gudatay baa waxa loo ogolaaday inay haddana umro ka dambaysiiso oo ay la timaado umro kale oo madax banaan halkaas ay culimada qaar kood ka qaateen dib male qaarna waxay leeyihiin uma badnayn hadiyigi salafka ridwaanullaahi calayhim almuhim hadda waqtigan hadda la joogo maadaama dadku ay badan yihiin meeshuna cidhiidhi tahay ku noqnoqoshada faraha badan ee dib kale la timaada darar kale iyo dib kale la timaada dibkay la imaanayso wax weeyaan meeshii waxay ku filaan laadahay dadkii waajibka gudanayay xajka dawaafay dartii xajka u dawaafay kuwii bay ku filaan laadahay adigana kolba meeshan inta tagta ayay marka soo umrayso mar abti ka soo umrayso mar islaantaadii oo dhimatay ka soo umrayso mar awoowo ka umre maanta dhanba umrada muxuu ahay kacbada balugta kala biximis sooma la isku rafaad marka waxa dhici karta xataa inay geeri timaado maadaama marka mashaqada noocaas oo kale ay jirto bay culimada badan waxay ku talinayaan hadaad umraysatood xajiday ku noqnoqoshadan faraha badan dib bay leedahay iska daa mar kale umrada u soo qasad masaladu marka waa masalo doodi ku jirto meelahaasaan hadalka culimadu maraya wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aashina 167aad sheekh aniga oo janaabo qaba oo dhowr salaadood gabagabaysi ku tukaday haddaan biyo helo anoo salaad u istaagi raba taa ma iska tukan karaa mise waxa qasab ah inaan qubaysto oo gabagabaysiga hore ima anfacayo aad sababta aad u gabagabaysatay ay tahay biyo la'aan oo aad biyihii hesho intaadan salaadii gelin ama u istaag ama gaar inaad u istaagto adoon salaadii gelin ba hadaad biyihii hesho waa inaad weysaysato oo gabagabaysigaagi waa buraya yaani gabagabaysiga salaada kuma gali kartid laana biyaad heshay sooma maadaama aad biyaha heshay waa inaad weysaysato xadiidka nabiga ku tusi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abi Dharr iyo geyrkii inna as-sa'ida at-tayyiba wudu'u al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma'a falyamassahu basharatahu yani arada daahirka ah waa ruuxa muslimka ah wixii uu ku dahaaro qaadan lahaa waa janaabada kaga dahaaro qaadan lahaa ama xadadka yar oo weysada uu ku kaga dahaaro qaadan lahaa hatta haduusan 10 sano biyo helin carrada iyo dhulkaas uu isaga gabagabaysanaya waana cibaadaysanaya
nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laakiin hadduu biyo helo markuu biyo helo waa inuu biyaha jirkiisa taabsiiyo hadday qabays tahayna qabaysto hadday weyso tahayna inuu weysaysto waxa laga qaadanaya marka mar alla markaad biyo hesho waa inaad isticmaasho gabagabaysigaagiina meesha waa ka baxaya waxa tilmaamaya sidoo kale xadiid fi saxiixayn ku yimid saxiix al-bukhari ku yimid xadiid imraan ibn husayn asaguna macnahaas uu tilmaamaya oo nin dad kalaashiisa isagoo fadhiya nabigu arkay war maxaad noola tukan weyday rasuulillaah janaaba ay ku dhacday war gabagabayso tuko xogaa markii laga joogay baa biyo la helay biyo u yiri nabi sallallahu alayhi wasallam war aaway kii markii dhaweyd janaabada qabay meesha waa ka rasuulillaah war biyaha qaado ka ku soo qabaysaa leeyahay marka waxa la yiraahdaa tayammumka gabagabaysigu waa dahaaro laakiin dahaaradaas ilaa intay soconaysaa inta aad biyihii ka helayso markaad biyihii hesho dahaaradaasi socon mayso waa dahaaro waqti la maana oo ku xidhan biyaha inaad ka hesho sidaana waxaa ijmaac soo guuriyay in markaasi aad gabagabaysigaagu burayo weysadu ay laazim kugu tahay ijmaac bay soo guuriyeen culimada qaar ka mid ah sida ibn al-Mundhir ibn Abd al-Barr al-Imam al-Qurtubi iyo qeyrkood wallahu a'lam jazakallahu khayran khayr jazaa su'aashina 168 سائلتنا وحيلة الشيخ وحنا يقف دمر وهيستا قبر 3 سنة جر aabaheedna waxaan kala tagnay iyadoo sanad gaarin sheekhu aabaheed waxa uu isku dayay inuu gabadha iga qaato waxa uu u tagay lawyer ilaa maxkamad baan isla gaarnay waxay noqotay inaan wadankii aan deganaa isaga guuro oo aan u guuro xagga Ingiriiska ninkii igama harin haddana wuxuu dacwad ka furay wadanka aan u soo guuray si uu gabadhi ula wareego gabadhu waa yartahay waa 3 sano jir umana diidani inuu u yimaado laakiin isaga wuxuu doonayaa inuu haysto gabadhi hal ilaa 2 week muddo ah markuu u baahdo waxaan ay hooyo gabadha dhashay gabadhuna 3 jir weeye way ugu adagtay inay muddada gabadha iga maqnaato maxay arinta shariicadu iyo diintu ka qabtaa maxaad say ugula tarin lahayd quraanka kariimka ilaahi tabaaraka wa taala wuxuu ku yiri la tudarra walidatun biwaladiha wala mawludun biwaladihi hooyo ilma dhashay ilmaheeda sababtiisa yaan lagu dhibin aabahana ilmaha sababtii yaan lagu dhibin hooyo ilmihii ay xambaartay 9 bilood uurka ku siday walacday foolatay nuujisay ku rafaaday haddana inuu sabab u noqdo dhibkeeda oo isaga dartii lagu dhibo ما قربا مع عدالة به ما لا تضر والدة بولدها يعني لغو ديبين المهد وكذلك آبها السجن علمه سيان لغو ديبين حلقة وضع علمها واض وضع الدشينة سببها كتلقينا آد اسكو ديبتان صور عدما in maxkamad la isla fuulo lawyer la isla qabsado la isku rafaado oo gabadha yarta iyadina la kadeedo gabadhi qaxdo laga daba tago lawyer hadana laga daba qabsado waradeena waxa soo kadeeda maxay idin ku wata yani mukhalafa keenis shariicada wala khilaaf asalka ilmuhu haduu yariye ilmuhu marba haduu yariye oo uu san gaadhin xilli uu wax kala fahmo hooya asal u leeyahay haysato xadaanada marka laga hadlayo shariicadeena hooya u xaq leh hadii hooye iyo kala tagaan duqu kala tagaan hooya loo daynaya iyada lagu biilaya allahumma hadii biilki iyo masruufka la isku fahmi waay ma aqaan balka biilki iyo masruufka hadii la isku fahmi wax siyaada ay raadinayso marka waxa weeyaan muxuu ahaay waata suuratu dalaaq laga hadlay Soomaa marka waxa weeyaan muxuu ahaay hawl kale waa laakiin asal hooya u leh حديث النبي صلى الله عليه وسلم باتلمامي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما هويني با رسولك صلى الله عليه وسلم أتمد مركاسي كتر رسولك إلهي ويل كيغني calooshayda ayaa weel u ahayd calooshan ku qaaday waa naaskayguna wuxuu u yahay sibraar yaani naaskaygu waa meeshuu jaqo oo caanaha ka cab
dhabtayduna waxay u tahay meesha weelayso uu ku seexdo saasuu wiilku u yahaa aabihiina waa i furay bay tiri inuu iga qaatana wuu rabaa ayib inuu iga qaatana wuu rabaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam anti axaqu bihi maa lam tankixii wiilkan gacanku hayntiisa iyo korintiisa iyo xanaanayntiisa adaa u xaq leh inta aad ka guursanayso maa lam tankixii haddaadan guursanin oo hadday guursato maxaa dhacay hadday guursato maha lagala wareegaa may markaa xugum kalaa imaanaya laakiin bal horta intayna guuriya hawla imaanin khaasatan ilmuhuna yaryaha gabadh yaroo 3 jir ah hooyo in laga qaato maaha in lagu maxkamadeeyana maaha waa dulmi waay qodobka kale meesha ku jira waxay tahay hooyada lafteeda inay ilmaha aabihii dhalay u diido inuu arko inuu la kulmo inuu soo booqdo inuu xataa marmarka qaarkood qaado oo soo ciyaarsiiyo hadday u diido iyadana waa daalimad sooma laana abuu xaq buu leeyahay ilmihiisa inuu u yimaado inuu la kulmo inuu marmarka qaarkood kaxeeyo xaq buu leeyahay gabadhu mid bay ku gardarantay inay tiraahdo gabadhaydu hooyaan ahay beer wax dhalay baan ahay usbuuciga ma maqnaan karto oo isagu ma fataatiir buu ciyaarahay isagu wax ma dhalin miya oo beer wax dhalay maaha miya saylifiis waa beer wax dhalay oo wuxuu intaa u daba ordahaya waa ilmihiisii inuu arkuu rabaa marka wakhtiga intiisa kale iska hayso laakiin hadduu mar siyaaro ku yimaado ku yidhaahdo aan usbuuc soo hayo ama 2 usbuuc soo hayo maxaa ugu diidi sooma kama adkaysan karo usbuuca oo isaguba sanaduu ka adkaysanaya mas'aladaasi marka gabadhu waa ku qaldanta waxaa la rabaa labada waalid ilmahan dhexdiisa inay ku dagaalamaan meehe xuquuq bay shariicadu dejisay aan mid walba aan dhibaato u geysanayn haddii jidkii ilaahay jeexay la mari lahaa aabbana ma dhibaatoodeen hooyana ma dhibaatoodeen laakiin mid baa dulmi wada sooma mid baa dulmi wada marka dulmiga la daayo hooyo ilmaha loo daayaan laga qaadan wayarka gabadha wayarta laakiin ayaduna aabba markuu soo baahdo waa inay ilmaha siiso muddo gaaban hadduu la maqnaanayo hadduu soo booqanayo xaq buu u leeyahay wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا بقول سغالي اللحدانات شيخ هدو قف فريستو صفكة هوري ومساجدك كدبنا وبنانك وقبحو دانو إليهي كبيه سي عمامد دي صفكة مكوسي عشان كرا horta mid inaan baraarujinno waa laga maarmaan midda baraarujinta badan waxay tahay masaajidka horta hal meel inaad ka barato hal meel masaladaasi horta baraarujin bay mudan tahay dad badan oo safka hore ragga ku dagaalama khayr Allah siiye oo u soo hormara ah bay masaladaasi horta ka qarsoontay xadiis baa ku soo aroorayo xadiiska Cabdurrahmaan ibn Shibl nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood oo uu reebay bay kamid tahay salaada markaad sujuudayso inaad sida tukaho kale biyaha markuu cabayo qub ka siiso oo sujuuda ku xasili weydo nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam iftirash as-sab' duurjoogta dugaaga markaad sujuudayso inaad dhudhunka dhan gogosho dulka dhigto sida eeyga ko kale ama muxuu ahay duurjoogto kale dhudhunka dhan aad gogosho ayadana lama ogola maxaa la rabaa على عشاء لا دغا دودنكنا دولka kor baa looga qaadaa sooma taana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam qodobka saddexaadna waxa weeyaan an yuwattina ar-rajulu al-muqam al-wahid ka ibtaan al-ba'ir inuu ruuxu hal meel masaajidka ka laazimo sida neefka geel oo kale neefka geel Soomaali geel marka la soo xareeyo dadkii dhaqiya jira yaqaanay neefka geel xirada meel buu ka fadhiistaa sooma حتى ماشي هذه لوغه هرمرو او كلاغا فديست و ka kicin xeradii kale oo dhan oo wada banaan sooma meeshii meel aan ugu ma baxdo waa inuu meeshii fadhiisto war adiga neef geela ma tihide meel uun ha fadhiisanin meel kale gagadisan masaajidka fadhiiso orda masaladaasi waa mas'ala baraarujin mudan ama masaladeena su'aashu ku timid waxa weey xadiis baa ku soo arooray xadiis Abi Hurayra fi sahih Muslim
xadiidka hore shanta warisi tirmidhi mooyee waana xasan xadiidkan dambana waxaa wariyay muslim min xadiid abi hurayra nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idha qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu bihi haduu ruuxu meel fadhiisto kadibna meeshii uu soo laabto intuu tago u soo noqdo asaga cid walba uga xaq leh yani wax weeyaan hawl yar baa qabsatay ama isku galay aw degdega ku yara timid ma fogaanin meeshiisii marka uu fadhiisaa oo xaq leh hadduu kaba ku ceshada iyo hadduu muxuu ahay cumaamad ku ceshadaba xaq buu leeyahay laana asaga dadka uga soo horeeyo fadhiistay sooma hadduu hawl yar u yara baxay inuusan fogaaninna waxaa lagu garan waxaa tiraadeen kabihii buu dhigtay cumaamadiina waa dhigtay nin kaba dhigtay miyuu fogaaday sooma nin kaba dhigtay waa dhow yahay sooma maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay inaad iska shaqo tagto oo sijaayad intaad meeshan dhigato maalinta iska soo shaqaysato kadibna masaajidkii oo safafkii hore la fadhiistay intaad timaado adiga uun sijaayadaada aad iska soo fadhiisato taa lama ogola waa dhac iyadoo waa budhcadbadeed waayo budhcadbadnimo waayo sababta waxa weeye meeshan aad xanibtay keligaa malihi dadka isku leh soo ma see lagu yeeshaa waxaa lagu yeeshaa inaad u soo hormarto laakiin aad xidhato laguma yeesho waana mas'ala sheekh islaam ibn taymiya alayhi rahmatullah oo majmuuca kaga hadlayo uu leeyahay xataa fuqahada qaar kamida waxay geliyeen baabka la yiraahdo as-salaa fi al-ard al-maghsuba salaad lagu tukaday dhul la dhacay yani meeshan meel dhacda laga soo qaaday salaada aad ku tukanayso ma asaxaysa mise asixmaysa muran ka taagay Soomaaliyeed marka taas lama ogola laakiin meel aad fadhiday hadaad wax yar ka kacdo u soo laabato adaa wax xaq leh xadiidka nabiga nasku ah salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aashina 107aad sheekh hadii laba dhalinyaro ah ay dagaalamaan kadibna midkood uu dhinto nabar ka soo gaaray kan kale balse kani uusan islahayn nafta ka go dilkaasi wala kac miyuu noqonayaa fuqahada ama culimadu dilka qaarna saddex qaybood bay u qaybiyeen qaarna laba qaybood dilka kaska waxa la yiraahdaa inaad ruuxa nabarka ula qasaday inaad ku dhufato waxa aad ku dhufanaysana uu yahay غالبا wax bini aadamka dila sida u badan shay wax dilayo laga kacaynin baad ku dhufatay inaad ku dhufatana waad ula qasaday dilka noocaas oo kala waa kas qisaas baa ka waajibta in lagu saamaxaba mooyaan marka diya laga qaato ma liska xafiyo mooyaan hadii aadan uba qasdinba niyadaadu ma ahayn ruuxan kadaato umaadan qasdin ama muxuu ahay ugaadh baa tooganaysay laakiin cidna meesha maadan ku ogeyn qasadkaagaba kuma jirin ka waa mid kale yiraahdo dilka khata'a diya ka waajibta marka hadii aad ruuxa u qasaday inaad ku dhufato nabarka laakiin waxa aad ku dhufatay wax loo dhinta ma ul yar iyo waxbaad ku dhufatay ushiibu u dhintayba markii hore waa tabardariyo miskiinima iska haysatay ushi yareed buu u dhintay marka waad u qasaday laakiin sheegaad ku dhufatay looma dhinto laakiin sabab buu u noqday marka waa midka loo yaqaano waa kas iyo kama isgalay oo qayb saddexaad fuqahada qaarkood ay qabaan qisaasi kama waajibto laakiin mag baa ka waajibta laakiin waxay kala qaadayaan magta ka waajibaysa gafka iyo ismooskiiska kaliya iyo kan gafka iyo kama iyo kasku isku dhex jiro magta kala adag marka geela la bixinayo yaa kala qaalisan laakiin labadaba mag baa ka waajibta qisaastuna tohoray ka waajibta marka kas haday noqoto hadaad nabarkana ula qasaday dilkiisa u qasaday waxaad ku dhufatayna uu yahay wax dila ruuxa bini aadamka dila marka waa kas waay markaas sidaas uu noqonay waxa ictibaar mudan ruuxa hadduu saa'il yahay daalimku soo weeraray hadduu yahay labadhan yara islaysay Sooma mid ba daalim oo wax weeraray oo muxuu ahay ruuxa kale dil raba kan kale xaq buu leeyahay inuu iska qabto laakiin sabab isaga qabanaya al-ashal fal-ashal
kolba sida ugu fudud ee uu isaga qaban karo siba si ka fududaa inuu isticmaalo waa hadduu isaga qaban karayo hal feedh inuu ku dhufto toorri inuu geliyo looma ogola sooma haddii toorri yar uu gacanta ka geliyo ay ka celin karto inuu caloosha kaga jeexo maaha hadduu wax yar isaga celin karo inuu xabad ku dhufto maaha sidaas daraaddeed saa'ilka ku soo weeraray daalimka ah qaabka aad isaga qabatay lafteedu waxay leedahay axkaamteeda kala gedisan bay leedahay mar waa lagu garaabiyo dambina ma lihid waxna laguguma laha marna waxbaa lagugu yeelan marna qisaas baa kana aduu axkaam kala gedisan bay leedahay wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشنا بقول كوية تضباطنات شيخ وحن قبا أفر حاس سدح كميدا وانسلت شوقنا مدك لنا ويقام قنتهاي مركا تن إقام قن مبيرو ويسكو في لانتهاي مركا مدن بي ويقو صعدا الرجال قوامون على النساء معاك قدام به بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا هذه الرجل لماذا أضوه وإن أضوح بحسابه reerka waxa oday laga dhigay waa waxoogaa dhaqaaleed bixinayso hadii laga waayo Soomaa reerka oday uma tid Soomaaliyeed wabima anfaqu laba qodob baa laga dhigay waxa Ilaahay ragga ku fadilay iyo nafaqada ay bixinayaan fuqahadu waxay qabaan xadiista nabiga laga faa'iideysan haweenaydu haday taajira tahay oo qaniyato xoolo leedahay wadaadkeeduna faqiir biilka isaga laga rabaa xoolaheeda meel bay dhigan hadal biilka soo ciyaar baa la dhisoo bixi laana waxay guriga kuugu joogto waa inaad biisho Sooma marka way isku filan tahay xoolay leedahay adeeriyada iska leh xoolahaas adiga waxa laga rabaa inaad islaantan biisho sida kuwa kale u biilayso biil soo Zaynab ma ahayn imraat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala عنهما النبي قال صلى الله عليه وسلم markaas iidan dalabta rasuulillah Zaynab baa ku joogtaa leeyahay oo rabtay inay ku soo gasho ayu zayani bihiya Zaynabooyinku waa badan yihiin waatee imraat ibn Mas'ud waa soo gal oo idma biro soo gasho markaas waxa ku rasuulillah waxbaan rabaa inaan sadaqaysto ninkayga Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay aniga caruurtayda cid walba ka mudane anaga nagu sadaqayso anuguna waxaan leeyahay meel kale sadaqadeeda geysanay nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi ninkaagu runbuu sheegay ninkaagii caruurtaada waxaad sadaqaysanayso ku sadaqayso Soomaali marka ninkii waa baahan yahay iyadana waa haweenay sadaqaysa kala baxaysa lama dhehin namaadaba xoolo aad haysato adaa isku filan warkaasi ma soconayo marka waxa gabadha biilkeeda waa inaad bixiso hatta xoolo isku filan bahayso hadaad la heshiiso meesheeda waa hadaad la heshiiso tiraahdo akhir Allah ku sii waan ku ducayne hawlahaaga isku filow Soomaali oo raali ku noqoto ahlan wa sahlan haday shaqaysato ayna guriga ku joogeen oo xamaalatana oo aad tiraahdo de anigu biilka waxaan ku bixinay inaad guri ii joogtay hadaad xamaalanayso aan wada hadallo iyadana way ku furantay wallahu a'lam جزاك الله خيرا جزاء سؤاشنا بقول لبي تضباطنات شيخ وحن قبا لبا حاس وين كلا ilma badan yihiin bal sabiil siman ayaan siiya midda ilmaha badan ayaa igu tiri xaq ma aha waxa aad sameynaysid iyadoo ay ka doorsan tahay biilka aan ula simayo xaaska kale ee ka ilma yar marka maxaan sameeyaa gabadhu way ka saxsanta wayna ka faqiihsanta sababtu waxa weeye sax dumarka la isla qabo waa in cadaalad loo sameeyo haddii cadaalad loo sameyn waayo ninka wada qabe ee cadaaladda ka tagay cadaab buu mudanaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam bal wala fadeexaynaya xadiidka Abu Hurayra Ahmad iyo Abu Daawud iyo Nasa'i ibn Majah waa soo saaray waa xadiis saxiix man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma جاء يوم القيامة وشقه مائل ninkii laba xaasle oo labadooda mid kamida u iisho u eexda
maalinta qiyaamadu imaanaya isagoo labadiisa dhinac mid ka mida leexsan yahay riwaaya kale waxay ahayd isagoo labadiisa dhinac mid ka mida dhulka yaa loo jiidaya ayuu maalinta qiyaamada imaanaya marka waa in cadaalad loo sameeyo qur-aankaba ilaahay shardi wuxuu uga dhigay guurka labaad maxaa looga dhigay ya waxaa looga dhigayba markaa tacadud samaynayso fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida adeer haddaadan cadaalad samayn karayn middaada iska agjoog soo ma markaa laguma ogolaba 2 iyo 3 iyo lama ogola middan iska agjoog haddaadan cadaalad samaynin haddaad cadaalad samayn karto marxaban soomaalit sidaas daraaddeed cadaalad darradu waa arrin khatar ah ayib cadaaladda maxaa la yidhahdaa marka ninkaa wuxuu cadaaladda ka fahmay in cadaaladda macnaheedu tahay in la wada siiyo loo simo waana faham khalad ah waxaa kala duwan u simid iyo cadaalad u samayn way kala duwan tahay cadaaladdu way ka guda weyn tahay u simidda mar cadaaladdu waxay soo noqonaysaa in loo simo isku wax la siiyo waa markay baahidoodu isla egtahay marna cadaaladdu waxay imaanaysaa in loo kala badiyo waa markay baahidoodu kala badan tahay soo saas ma adiga ilaahan kugu dhaariyay isla haweenay 10 ilmood haysa gurigay degayso iyo midaad maanta soo guursatood 2 tihiin guriga aad dejinayso ma isku mid ba biilka aad siinayso ma isku mid ba macquul ma war middan keligeeda meeshaad 500 siinayso 10 ilmood bay taasi haysaa 510 ku dhuf sawir fahdir ba way ka baahi badan tahay baahideeda in la qadariyo waay sooma wayla eexay noqonaysa mas'alada marka dad badan baa fahamkaasi qaloocan qaatayo waxay ka fahmeen cadaaladda iyo simidii baa isaga khaldantay saxna ma sax way caruurta markaad wax u qaybinayso xasaska markaad wax u qaybinayso dadka xuquuqda marka wax loo qaybinayo waxa la ictibaarinayaa la fiirinayaa baahida lagu bees garaynayaa mid walba baahidiisu intay dhanta inteed ka dabooshay basantiga aad qolada baahidooda ka dabooshay qoladana baahidooda ka dabool hadaad qoladan hilib siisood biil aad maalin kasta hilib u kariso hilibkooda meesha qoladan ay ku filan tahay ruuc ku filan yahay qolada waxaa ku filan 2 kiilo Soomaaliyeed marka baahida wax ku saleeyay simiddu saxma gabadha ka saxsan warka murtidiis wallahu a'lam su'aasheenna 173aad sheekh adoonta nikax la'aan miyaa loo galmoon karaa haddii ay jawaabtu tahay haa naagta haysata adoon miyay u bannaan tahay iyadana adoonkeeda inuu u galmoodo adoomada haddii ay isqabaan maxaa xal ah bimacnaa haddii la soo qafaasho iyagoo isqaba oo reer ah maxaa xal ah jazaakumullahu khayran bismillahir rahmaanir rahiim su'aasha hore waa dhowr su'aalood is saaran waay adoomada laba mid baa loogu galmoon karaa in la guursado oo nikaax sax loogu galmoodo iyo in la milkiyo oo ama qayb ahaan ay kugu soo wareegto qaniimadii la qaybinayo mesela ama aad soo gadato ama lagu siiyo milkigaaga soo gasho milkigaaga haday soo gasho marka waad xaasaysan kartaa waad u galmoon kartaa laana waa adoontaadii marka ama nikaax ama lahaanshaha loogu galmooda qodobka labaad haweeneyda adoon kale adoonkeedu ma u galmoon karaa maya adoonkeedu iyadu ma xaasaysan karo uma banaa laakiin ninka ayaa adoontiisa yaani wax weeyaan u galmoon kara dumarka maya su'aasha xigta haddii la soo qafaasho ama la soo qabsado iyaga oo isqaba oo gacanta soo galaan طبعا mid walba cidii gacantiisa ay gashay ayaa adoon u noqonaya
ninka doonta qaatay oo la wareegay wuxuu samaynayaa hal dhiig ah markay hesho isagii xaas u noqonaysa nikaaxoodii gaalnimada ee jirayna dee addoomayba noqdeen oo axkaam kale qaateen taasina sidaas wey wallahu a'lam جزاك الله خيرا. سؤاشنا بقول فريت تضبطناد التحيات كما قال أخينا يقور ما فرتها لتاجا قور ما أنا لجوجيا فرت التاجيد هذا هي إشارة التحيات كدحدي سوا السنة أحاديث النبي إنه كسر صلى الله عليه وسلم حكمة كتيرتنا وحويان شيطان كأيا اللي سجر ربا شيطان كيقول درنت أحمد بن حنبل يغير كتب وحي ورينا يغير وحي ورينا يان حديث نافع وحلي عبد الله بن عمر وحو أهان شيري صلاة مركو فريستا تحيات كأو فريستو لبدي سكعمود وحو ساري شيري لبدا بودا كركود ها وحنو شيدا لبدا لو كركود ساري شيري وأشار بأصبعه كدي من فرتيزا أيو فيقي شيري وقرو قادي شيري وأتبعها بصره كدي من aragga ayuu raacin jiray markuu farta saa u qaado farta iyo araggiisu isku toojin jiro indhuhu ku fiiqi jiray kadibna wuxuu yiri oo nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wasallam nabigu yiri la hiya ashaddu ala shaytaan min al hadid fartaasi shaydaanka waa uga daran tahay birta marka tawxiid bay tilmaamaysaa mid loo faro taagahayo arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam ahid buu ku yiri أحد أور ميت كديجو إلا نوا الله كلييرد ويموت فرطني واحد الماميسا مصبحنا ولا يدعى إلهي بيقول تصبيح سنيسا الله ينزه يسوي كلييليس ما قعب هالك هذا لقى سيب سأسترد الفرط إن لا تاجو صنّا ذا يكسوكان تهاي دقاتشنتا حديث باكسارو لا بحديث باكسارو مدها يا موسى دقاتشين شرين سجوا ضعيف مدها يودقدقاچين جيري كان يحركها يدعو بها ودقدقاچين جيري markuu ducaysanay taxiyadka ya laga wada kaas uu dhaqdhaqaajin jiray dhahaya laftiisa sixadiisa la isku haystaa ma sugan yahay mise ma sugna lafdada dhahaysa uu dhaqdhaqaajin jiray ayaa culimada qaar waxay leeyeen lafdigaasi waa shaad waa lafdi falaaga ah oo xadiiska aan ka tirsanayn qaarna waxay leeyihiin meehe ishaarada iyo dhaqdhaqaajintu waa isku macno oo wax shuduuda kuma jiro sugnaanta lafdigaana waa la isku haystaa walow sheekh albani uu leeyahay waa sugan yahay sidaas daraadeed farta taagideeda iyo dhaqdhaqaajinteeda iyo mas'ala dhib badan ma aha masaa'ishii fuqahadeena iyo culimadeena isku khilaafeen bay ka mid tahay goorma la qaadayaa ayadana waa ku kala ra'yi bedelan yihiin maalikiyadu مثلا waxay qabaan intaad atahiyadsanayso dhan ila adamaynayso farta waa taagi waadna dhaqdhaqaajin bay leeyihiin shaafiiciyadu waxay leeyihiin waa madhabkii ee Soomaalidu haysatay Imam Shaafici marka illa Allah aad leedahay oo kelimada tawxiidka markaas la taagi bay leeyihiin ashhadu an la ilaha illa Allah يا حنابلة يقولون صداقة حنفية وحي ليهن إلا الله ذا التاج ما هي لا إله على تاج إليه إلا الله ذا والدتنا صبارت مرك أنت تحياتك الصعودة بفرتها تاجناتو هلا نقدقاتيو يلا نقدقاتين عند محوها كلمة التوحيد هلا الرفعيو كل ذلك هو تفاصيل أي فوق هذه علماء كوكلا أركتيب بدلنايه مسايش النوع سوكلا أنا ديب مالي يا نبى فرت دقدقاتي وفرت لقبتو اللي تشبيي مدبا صلاة دي بكبر تيل يدي إيو وركازي وأنا أقول الله وركي وان مسألة دي مسألة طبيعية فوق هذا نبى كوكلا أركتيب بدلنا ولو كلا أركتيب بدلنا كريه أما دقدقاتي انتهى النقطة أما ماشي يحل على قاضي يا النقطة كرلو تاجي والله أعلم جزاك الله خيرا سؤاشينا بقول شني تضبطناد السلام عليكم شيخ الله يا كو حفظه qofka dumarka ah meelaha shaarica ma ku tukan kartaa hadii salaadu tagayso oo aan gaari karin meel ay ku tukato gaar ahaan wadamada Yurub
xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam u'tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli shan arrimood baa la siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo anbiyadii iga horeysay ahad kamida aan la siin shanta maxaa kamida waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura dhulka oo dhan waxa la iga dhigay meel aan ku tukado meel alla meeshii salaadu ugu qabatana waa ku tukan ummadeeduna way ku tukan Soomaali marka meeshii salaadu ku qabato haday meel kale oo astura weydo way ku tukanay gabadha muslimada hadii rag ajaaniba meesha marayaan iyadoo oo qabda inda shareerkeeda ay ku tukanay haday inda shareeran tahay hadii kalena sideeday ku tukanaysa Allahumma haday baqada mooyaane tamada khaasatan reer galbeedka cunsuriyiin baa iska jiro waxa laga yaabaa gabadh foorfoorsanaysa haday arkaan inay ballaad ku salaxaan marka haday labeeda u baqayso markaasi waxa weeyaan salaada hadii la dibdhigi karo hadii dhigto haday labeeda u baqayso xaaladaas oo kale waa cudur daar duhur oo kale haday tahay casarka u dibdhigto meel ku tukan kartaa tagto haday maghrib joogto cishaa u dibdhigto markaas hal sala tukato adiga waxa weeyaan xaalad khaas ah ay tahay waqti kale way tukan kartaa banaanka way ku tukan kartaa di waqti uu dhaafayo ayna ka gaari karin meel asturan wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aasheena 167 assalaamu alaykum sheekh maxamed waxaan ku noolahay wadamada Yurub waxa ii soo dacwooday dumaashigay walaashii qabay oo ay hadda kala tageen markuu dacwada ii furay Afrika ayuu igu yimid maxkamad ayaan tagnay laba marqaatina waa joogeen oo meher ayaan sameeynay in kasto ayna niyeysan wadankii Yurub ayaan sidaa ku imid hadda xaas ayaan ahay oo carruur ayaa ii joogta sheekh meherkaasi masax ayuu ahaa guurkayga haddase muxuu noqonayaa jazakallahu khairan waajib markii oo hawshu qasanto ayaa marka wadaadada su'aal la su'aaday bal intaas oo ilmo intay dhaleys maxay gabadhu su'aasha u weydiin weydo arintu waxa diisan way yani waxa loo baahan yahay ruuxa markii uu shakigu ku dhasho markaas la rabaa intayna waxaan aadan ku tilaabsan waxba ka dhalan karee inaad iska cadaysato la rabaa iska hubiso arintaasi waxa weeyaan sida muuqata hadalka ka muuqata gabadha طبعا kama hadlahayo uu soo dacwooday iyo guur baa la sameeyay iyo muxuu ahaay xaga la isku geeyay iyo sheeka Soomaalidii way taas shariicadu maxay ka qabtaa iyo taa leeyma weydiinin munaasabaad kalena waan kaga hadalnay Soomaaliyan laakiin mas'aladan khaaska su'aasha ku timid markaan ka jawaabo waxa weey sida su'aasha ka muuqata markuu u iimaanayo oo ay arintan sameynayaan walaasheed buu qabaa sida hadalka aan ka fahmay way gadaal dambe kala tagi doonaan walaasheed kala tagi doonaan hadduu markaa walaasheed qabay meherkani maba asaxayo sababtu maxay tahay laba gabdhood oo walaalo ah miyaad guur isugu keeni kartaa meher isugu keeni kartaa maya mid intaad qabto ta kale meherba ma qabanayo waa hadii ay markaa walaasheed wada joogeen waxay sameeyeen wax jira ma ahayn ma la yaani buu hadii markaa ayna walaasheed wada joogin oo ay kala tageen oo markaa kadib iyadoo uusan qabin arintani dhacday markaa wixii guur ma aha mise ma ahayn gabadhan bay su'aashu ka timid laakiin Soomaali badan bay haysataa arintaasi waxaan kala qaadaynaa meesha ay guurku ka dhacay maxkamadda guurka sameeynaysa magaalada hadii waligaagii joogay meherkaasi wax jira ma la nikaaha illa bi wali hadii se magaalada waligaagii uusan joogin oo uu meel kale ku maqnaa cidda ku guurisayna uu qaadi ah sharci ah meherkaasi waa jira oo sheekhana uu hadameen waan ku jid maraynay shoreeyanu Soma idinka idin jirta meeshani waxa way waa guur arkaantiisii dhameystirtay gabadhu markii waligeeda la waayo qaadiga wali uu Soma wuu jooga sultaanu waliyun man la waliya la waligeedii waa jooga ninkana waa nin xarig u qabto guursan kara
markhaatiyana waa joogaan arkaantii guurku waa dhammaystiran tahay niyadiinnana idinka idin jirtaa hadday arrintu sidaas tahay waxaa ii muuqata meherkaasi inuu asaxay iyo guurkaas wabitaali hadda 3 ilmood bay dhashay ilmana ninna way qabtaa isee la yeeli ninka iyada hala kala eriyo ninkii horaa qaba kan dambe ka ilmo dhalayna meherkiisa waxba kama jiro caruurtase isagaa leh waa caruur sharci ah sooma ninkii hore bay xaas u tahay kan dambe ka cidda tirsan kii hore xaas u tahay markay ciddada dhamaysatay kii hore xaas u tahay hadduu kii hore ka farsamaysto oo riyo iidaa yidhaahdo uu daayana guur cusub ha samaysto haddii sidaa looga qaatana hadda ninkaasay xaas u tahay aduguna markii horeba khalad buu meesha kusoo galay kan dambe ama ilmuhu laba gooro waa ilmo sharci ah maxaan u nidhi ilmo sharci ninkan dambe dhalay sababtu maxay tahay guurku sax ma aha ilmihii ku dhashayna waa sax warka hadda ka hor baan ka soo hadalnay soo garan maysaan maxaan ku salaynay mise islaamaba soconaba dhowr goor bay xataa soo noqnoqoton ka hadal maxaan ku salaynay waxaan ku salaynay labada ruux ee isu galmoonay haddayba rumaysan yihiin inay xalaal isu yihiin oo shareecadu isu xalaalaysa wax saxana isku arkayaan marka hadday sidaa rumaysan yihiin oo saa isku arkaan ilmaha intaasaa ku filan inuu xalaal noqdo sooma haddii uu waxay moodayeen dib ka khaldamo ilmihii nasabka waayi maayo ilmuhu mar walba sharci buu noqonaya soomaali marka masaladu sidaas weeye fasiishaasay leedahay wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤال شاين ugu dambeysay darsigeena caawa waa su'aasha 177 waa su'aal cajaa'ib leh weey gabadhan waxay su'aasha ku bilowday inna allaha la yastahi min al-haqq waxay tiri waxa ay qaba nin jinni ah xilli aan ismeersanina aanan aqoonin jamaacna igu sameeya si toos ahna ayuu igu yimaadaa oo markuu rabo inuu xaajo u guto waxa yara qabata waxaad moodo hurdo yar marka ayuu hawshiisa gutaa anna toos ayaan u dareemaa hawshiisa waqtina malahan iyo goob uu kugu simayo haddii aan suuq joogo iyo haddii aan guri joogaba waa isugu mid wuxuuna inacsiyay ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray su'aasheedu waxay tahay kow sideen isaga celiyaa ninkan jinka ah labo haddii uu jamaaco qubays miyaa igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa jinni iyo insise ma isguursan karaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان dadka lagaga qosliyo laakiin waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen waxyaradan si kooban uga jawaabo horta way suroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu jinka iyo insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba ka mid oo nin iyo rag yimid oo yiri waxaan hayst waan xaqiiqo jirta waay marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanay aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood
insina uma galmoonin jinnina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar kamida waxay u dilishay Qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-Isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad athar mujahid uu ka keenay baa jiro ma aqaan suu sugan yahay wuxuu yiri ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaartii akhriyin bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana haduusan akhriyin shaytaanku ibtu isaga maraya buu xubinka taranka ibtiis oo isku maraya kadibna islaantii wala isticmaali buu marka washarikum fil amwali wal awlad tafsir tafasiirta kamid adiga way suuroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilma ma isu dhali karaan ma ka suurowdaa ilma jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Soomaaliyeed laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin tayib dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas ee jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadiise laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba marka dambi la taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo waa mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaala loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way kala ku kala aragti bedelan yihiin saayidna dhoo masaa'il horay looga hadlay waxay leeyihiin hadii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo bay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays marka waajibi maayo waa ruux qarway oo kale Sooma ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekeysiyo nin caadi iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad waa soo hadhay inuu si toos soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo baa ka shaqeynaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin way soo jeedaa xaaladda iyada haday biyo yimaadaan waa qabays hadaynan imaanin way isku khilaafsay culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkayo ba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see la isaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta la isaga celiyo sooma afkaar farabadan quraan ku soo aroortay qaabab kala gedisan xadiista nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah ilaahay inaad ku cararto adkaarta markaad seexanayso markaad muxuu ahaay soo toosto xilli walba waxay leedahay adkaar shayaadiinta la isaga celiyaa jirta iyo muxuu ahaay ducooyin inaad ku waabadsato ilaahayna ku cararto tabaaraka wa taala taas ayaad isaga celin kartaa ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa taala aad muxuu ahaay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiq No one knows the secret.